assalaamu calaykum xilli walbo idiin tahay ha idiin wanaagsanaado haddii aad tahay qof yuutubara ama aad tahay shakhsi iska jecel inuu ruuxsado sawirradiisa fiidiyoyaashiisa iyo waxyaabaha la midka kanalkan waxaan oga hadalnaa mar waliba hadday tahay qurxinta fiidiyoyaasha sawirrada codadka applicationno khatara iyo waxyaabo badan oo ku xiiso gelin doono kusoo dhawow mar labaad haddii aad ku cusub tahay kanalka waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto siina share garaydo like-na aad saarto fiidiyowgan waxaan kula wadaagayaa qaabka ugu fudud oo aad ku quruxsan karto sawirradaada cashirkan waa cashirkii koobaad kaasoo ku saabsan big artistka wuxuu noo noqon doonaa horodhacay ku saabsan big artist waxaan kugu tusin doonaa sidoo kale waxyaabaha uu ka kooban yahay qaababka guud qaabka uu shaqeeyo qaabka loo galayo iyo haddii aad rabto calaamadaha isaga ku dhex jiro qaabka sawirrada loo soo gashanayo waxaan u soo gelaynaa qaabkan big artistka markaad saan u soo kiciso ama qaabkan oo kuugu soo kaco marka ugu horreyso waxaad ku dhufan doontaa sidaan uu kuugu soo muuqanaya haddii aad aragto meeshaan waxaad arkaysaa meeshaas calaamadda ay ku qoran tahay balasta kadibna haddaan hadda ku dhufto wuxuu toos ii geynayaa meeshii aan ka soo gashan lahay sawirrada soo halkan waa sawirro ama waxaan aniga ku sameeyey sida halkan kaaga muuqato okay waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso ma wuxuu ku isticmaalayaa kombiyuutarka haa aniga waxaan ku isticmaalayaa kombiyuutarka haddii aad rabtana waxaad ku isticmaalin kartaa taleefankaaga fiidiyowgan ka horreeyey waxaan oga soo hadlay qaabka applicationada lagula soo degi karo kombiyuutarka waxaan soo galnay big artistka haddii aad rabto sawiraad adiga leedahay waxaad ku dhufanaysaa meeshaasay ku qoran tahay all photo haddii aad rabto kaamirooyinka iyo kalarada kala duwan ee uu wax ku sawiro waxaad imaanaysaa camera si aad adiga wax iskugu sawirto haddii aad rabto inaad wax drawing garaydo sida qaybtan kaaga muuqato waxaad dooran kartaa qaybahan ay ku qoran tahay drawing haddii aad rabto fiidiyoyaal sawirro aad u qurux badan oo free ama free photo ee aad ku dhufato wuxuu ku siin doonaa sawirro kuu noqon kara background ama sawirkaaga caadiga background aad ugu samaysan karto okay mid walbood u baahato waad ka dooran kartaa tusaale ahaan aniga hal mid un baan dooran doonaa waan u soo laabanayaa kadib halkan markaan joogo waxay ii marayda qaybtan waxaad sii dooran kartaa sidoo kale qaybtan hoosey ku qoran tahay background waa maxay waa kalarro kala duwan sida hadda halkan oo kale kaaga muuqdo okay maadaamay sidaas tahay waxaan dooranayaa sawir ka mida sawirradan friiga qaabkan ayuu u soo baxayaa waxaan dooranayaa sawirkan wuxuu iigu soo baxay qaabka kan sawirkan waa sawir friya oo ku dhex jiro big artistka markaad soo gasho applicationkan waxaad arkaysaa qaybtan hoose inay kaaga muuqdaan xirmooyin amase qaybo kala duwan ama qaanado ama tools kala duwan kuwaasoo ay waxyaabo badan ku jiraan waxa ugu muhiimsan waxaad arkaysaa kan koowaad ay ku qoran tahay storeka kasoo gudub waxaad imaataa toolska waa qaanado ama bukisyo aad u badan sida halkan kaaga muuqato waxaad ku arkin kartaa cropping waxaad ku arkin kartaa shape cropkii oo kale waxaad ku arkin kartaa sawirka iftiinkiisii oo kale inaad wax ka bedesho haddii aad rabto inaad iftiinka siyaadiso ama aad yarayso haddaad rabto geesihiisoo kale inaad ka dhigto xoogay qaabab aan la arkin karin tusaale backgroundkaaga oo kale waxaad rabtaa inaad ka dhigto wax oo xoogay nadiif aan loo arkaynin laakiin sawirkaaga u noqdo mid clear sida hadda ubaxa halkan kaaga muuqdo kale ubaxan waxaad fiirisaa geesihiisaas laakiin asaga waa nadiif laakiin qaybahan oo kale markaad aragto sida asagu uu yahay ma ahan effectska waa sawirka halkan ku saaran inaad ku samayn karto effect bedelin karta qaabka uu yahay sida hadda nusqadahan oo kale waad arkaysaa wuu isbedelayaa waxay kadib qaabkan uu noqon karaa qaababkan okay dib u laabo waxaan imaanaynaa
meeshiinii hore haddii aad timaado ama aad dib u soo laabato wuxuu ku tusi doonaa yacni meeshii aad ka jari lahayd sawirkii oo kale meeshii aad ka dooran lahayd qoraalkii ama textigii waxaasoo dhan waa kuwana haddaad rabto sawir inaad backgroundka ka bedesho qaybtaan haddii aad rabto inaad qoraal qorto waa kana haddaad rabto sawir inaad soo gashato waxyaabahan oo dhan okay wuxuu leeyahay sidoo kale yacni iftiimo ama sida laambadoo kale qaababkan oo kale waxaa laga yaabaa sawirraa ama qof sawir galoo kale markaad aragto inaad isdhahdo qofkan yacni waa halkee intuu ku gala sawirkan layrarka meeshaane yacni waxaas intee weeye inaad isweydiinayso okay maadaama ay sidaas tahay waa iftiinka waa kana waa iftiinka hadda qaabkan yacni halkan ayuu kaaga muuqdaa haddaan soo weyneeyo waa kana sidaas unbuu noqonayaa yacni waa dhowr iftiin ama dhowr kalar oo kala duwan kuwaasoo aad wax walbood u baahan tahay aad ku samayn karto okay sidoo kale applicationkan yacni waxyaabaha ugu fiican yahay waxaa ka mid waxaad ku samayn kartaa drawing ama inaad calaamadihii oo kale wax sawirin karto sida hadda qaybahan oo kale tusaale ahaan haddaad rabto meeshaan inaad magac ku dul qorto oo kale ama logo ama ciwaan oo kale iyo waxyaabo lamida aad saarto qaabkaad u saari lahayd unbuu ku tusayaa maadaama ay sidaas tahay